Somaliland waa la baabiyey waana lagu ciyaaray waxaana ka masuula wadaadada halkaas saaran cadaymaan kula wadaagaya intaynan cadaymaha u guda gelin Somaliland markii la dhisayay la sameeyay laba group baa sameeyay group ay dawladnimada iyo dimuqraadinimadu ay ka daacatahay oo inuu cigaal ka kow yahay iyo group aan dawladnimadana aaminsanayn dimuqraadiyadana aaminsanayn kaliya iyagu u socda maamul wadaadadaasina ay ka kow yihiin iyo group saddexaad oo dadka shacabka ah oo iyagu waxa meesha ka socdaba haba yaraataan ogeyn oo kalba dhinacii loo jeediyo u kacaya markii dastuurka la sameeyay in cigaal wuxuu ku dagaalamay qaybta maamulka iyo qaybta golayaasha in laga dhigo dimuqraadi laakiin wadaadadu waa khiyaameeyeen waxay ka hoos saareen golaha sharci sameynta in aani xeer soo saari karin ilaa la soo waafajiyo xeerka qodobka shanaad ee dastuurka qodobka shanaad waa maxay xeerarka dalka ayuu qodobka laba faqad labaad ka hadlay xilli marka baarlamaanku xeerarka sameeyay oo inuu shariicada islaamka ka soo qaato oo aanu sameeynin qaanuunka soo jeeda shariicada islaamka marka baarlamaanku markuu xeerarka dejinayo mar walba inuu mudnaanta koobaad siinaya shariicada islaamka wax shariicada islaamka soo jeeda inuu sameeyana awood u male xeer kasta iyo sharci kasta oo ka hor imanaya shariicada iyo usuulul fiqiga dastuurka laguma soo dari karo sharcina ma noqon karo ayaaba qodobkii shanaad ku taalaba oo marka golihii sharci dejinta shaqadoodu waa maxay macnaheedu waxa weeye dastuurka dhanba wuxuu xidhan yahay qodobka oo ay tahay shariicadaasa wadanka shariica loo baa u dastuura shariicaduna markaa maxay tahay madiinba absolutely wax diin iyo rasuul iyo ilaahay toona la xidhiidha ma aha haddaad waxa diin u haysato adeer Allah yarxamka waad khaldan tahay adeer dib isu sax shariicadu waxa weeye waa fahankii imaam Shaafici weeye uu qoray qarnigii 7aad uu u qoray dawladii waxa weeye boqortooyada hay'ad dictatoriga hay'ad qarniga xilliga noolaa taa weeye shariicada laga hadlaya wax kitaab ilaahay waxa la xidhiidha absolutely ma aha adeer bal marka ila daawo wadaad kamida wadaadadii dastuurka qoray oo cadeynaya dastuurka Somaliland inuu yahay shariica loo laakiin dimuqraadiyadu inay afkoon tahay iyo in adduunka la iska gado ay tahay bal ila daawo dadkii wax la furayay wax la xiri karayay ayaa u fariistay oo soo baaskareeyay niyad wanaagsan oo dadka loogu soo gudbinaya oo caalamka lagu dayanaya in loo footeeyay al-hal wal 'aqd baa isku raacay waxa akhriyo doontaan kutub badan oo soo fiqiga ijmaac ku hadii wax ijmaac meel taala ijmaac dhaco intii wadaarta wuxuu noqonayaa inama yaakulu dhibu min al-ghanami al-qasiya arga waxa weeyaan sida ay markaa khiyaarta culimadu iyo wasiirku waa u hadleen bilasha cali waa magacuun baa koodan meesha iyo rag wax ka qoray ha hadlaan bay hadal badan oo aniga iyo hadho qiimo wadan ma jiro sideen uga tabaabushaysan lahayn haddaan mid yar ku noqdo waxa culimadu taqaana yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad hadal guud ahaan loo yiraahdo iyo hadal dabran hadalka dabarka aba xukum hadal dastuurka marka uu qorayna dabaraan uu yaal hadalna waa qayan yihiin saasi uu qoray qaarna dabar baan u sameeyay mas'aladan diinta islaamku baa marjiciyada alqawaaniin waa diinta islaamka wixii diinta islaamka ah waa dibadda wadaadkii waxa uu taagan yahay dastuurkii waa dabray waana xidhan yahay baa uu taagan yahay ya wadaad maxaa sameeyay aroos aan tagay bay aroosada iska baxday maxaa dhacay ninkii la sheekeysanaysayba ma aha show nin kale la ag fadhiisay saasun bay u eegtay mise ag fadhidoon bay aragtay iska baxday Somaliland xaqii ay ka sugaysay dastuur dimuqraadiya waxa loo qoray waa dastuurkii al-shabaab bal dadkii xilliga noolaa iyagana sida loo galay bal ila daawo iyagana markii loo codeynay anigu waxaan ahaa xaadir waana codeeyay laakiin ma garanayo sidaan u codeeyay su'aashu waxay ahayd waxaan soo akhrisan oo aan la isiinin oo aan ka soo baaran digin baan u codeeyay waan garanayaa maalinta dastuurka loo codeeyay baabuur baa lagu naadin jiray xaafadaha lala mari jiray dastuur baa jira saxaafadaha lala mari ma jiro dadku way ku yaaceen goobaha codeynta tagay waana wada codeeyay waxay dabadeedna meesha ay khaladku ka yimid halkaas ay ahayd su'aasheeda kale aan doonayay inaan waliba waxa kala jirta
dadku imika dastuurka ma wada akhrin su'aashan haddaan su'aasha kusoo noqdo waxa weeye su'aasha dastuurka inkastoo loo codeeyay 179 dadku way codeeyeen ayagoo aan fahansanayn haddana wax ka beddelkiisa yaale tabta dastuurka al-shabaab taa laydinku qoray afkana laydinka leeyahay waa dimuqraadi isla sidaas oo kale baa waxay wadaadadaasi diin ka dhigteen hadal wadaad afkana waxay idinka leeyihiin waa diintii ilaahay waa diintii rasuulka waa diintii islaamka laakiin marka waxa ay sitaan iyo waxa kitaabkay ku qoranba laba waxoo iska soo horjeedaba weeye isla tabtii dastuurka Somaliland loo khiyaamay ayaa maalinkii dhowtay dastuurka Soomaaliya la qorayayna isla sidoo kale loo khiyaamay balila daawayana marka boqolkiiba boqol adaa ku wata sheekh ma hubtaa in diinta lagu saleeyay dastuurkan oo diinta u waafaqsan yahay horta dastuurka aan horta de kulli ma wada akhriinin laakiin inta aad cabaar oo waxaan mugta cabaar baa loo wadi soo garmaysid laga sidii hore u ahaa meelaha diinta khuseysaba meelo kooban bay ahaydba badana waa cutubka maxaan ku raacay koobaad iyo midka labaad u badan tahay waxyaalaha kale waxa weeye waa idaaro madaxweynaha iyo shuruudihiisa maamulka baarlamaanka federaalka khayraadka waxaas weeyaan marka badan intaas baan fiirin jirnay intii inta ka ognaa anaga waa fiicneed waxaas dhan marka wadaadku muxuu sameeynaya si golaha wakiilada xildhibaanada shaqadooda uga kaxeeyo sumcad darro u sameeyo sharafta ka qaado bahdilo isaga loo hoos keeno si uu u maamulo bal waa kana ila daawo shariicada ku qabto shariicada islaamku ku qabto qodobo asaas sidaas darteed waxaan la kulannay saaxiibayaal raallihada waxaan la kulannay 12 ka mid ah culimadii dalka waxaan la kulannay sheekh maxamed sheekh cumar birid waxaan la kulannay sheekh maxamuud suufi محمد وحانو لكوني شيخ عبد الله علي جوهر وحانو لكوني شيخ عمر شيخ خديب مركان علماء لكوني وحانو اسمه قاولي كون وحانو اسمه قاولي مراها اياه قرآن كلا لكن وحانو اسمه قاولي انه واجب ديني يتهي من دستوري يتهي إن لغا دورانو معامل كستا كل سنة لما وحام إسلام قادمي إن دلوه هو كان سمه فرد علماء الدين كتاسو كسريسا شريعة إسلامك إيا دستور كجمهورية السومالية inta markii dastuurkii ku sameeyeen oo ay ka dhigeen wax magaciyaal oo shaqeynayba dawladii Soomaaliland iyadoo indhaheedu 15 yihiin oo soo taagan baab dawlad kala hadana ka dhex furteen wadaadadii bal waa kana ila daawo اعتصام وحزبي دينية وسياسية دينية وبمعنى الدعوة دي الدين تينو كشقين ايو شيقية سياسية وحكم حزبي حكم دوري وحلو سميي سيدا الشيقين رقي سميي مدحنا وصل رئيسة كان نقضي دعوة داد كاين وحلوات لقوا وناق الله فرح ما انت لغا ريبو هي طلب السلطة والوصول إليها هي الحكم لقو قالوا لبدا سألوا سمين وحوليه قاب اسمات شبهها قاب اسمات كالدولة دولة مدحوين إلا دي مدحوين وليه هذا هو بشير صلاة كحمر فرنيوي ساقا وراقا كقرطة مارك الله وريستان الشاقة وحو قرصدا بماها وحوليه قلياش الدولة دو كلا وحلو يقانو الشورى العام وقولها وصر هي وقبل الله الرق لقى صوح وشو لقى صوت دورتي أيا كتيرة هي الشورى المحلي وقوله قبل كستاولي مقالة صالحة دي الدقموين اللي دي الدقمة كستاوحي اللي دي وحلو يقانو الشعبة وقولها كوصي صالحان دقموين كيو كلا قولياش هاي الدقموين كليين يلا قصوا الدورت الشعبة كستا waxay u qaybsantaa afar usro shucbadii baa furuuc si yeelanaysa usradu markaa waa halka ugu hooseysa cudwiga ama qofka xubinta ayuun baa ka hooseeya
xubinta xataa wax ka sii sheegay baa jira qofka xubin ka noqday waxa jira wax loo yaqaan hawaamish hawaamishta laftoodu laba u qaybsamaan haamishi bislaaday iyo midaan wali bislaan ka bislaaday waa ka yani in badan laga shaqaynayay hadda u diyaarka in xubin laga dhigo kaan wali bislaan meel yara durugsan baa lagu hayaayo wali xubinnimo uma diyaarsana laakiin sidii xubinnimo ugu diyaar garoobi lahaa ayaa laga shaqaynayaa waxa uu leeyahay xisbigaasi daahir dadka u muuqda muuqaal dadku ay arkayaan oo aan wadaado masaajidada ay jooga meelahaasoo dadka wax u dhigo khudbadeeyo oo mararka qaarkoodna aada loo weyneeyo si dadka indhahooda ay u qabtaan oo loo yidhahdo waa culimadii waddanka iyo baatin kal iyo in qarsoon oo khawaastu ay og tahay qaraaro iyo go-aamo la gaadho arrimo la fuliyo iyo waxyaabo la halmaala dawlad inay dawladda Soomaaliland ka dhex samaystaan kumay eekaane intii dawladii dhex galeen ay ku dhex milmeen baaba waxay gaadayaanba inay maamulka la wareegaano meeshaba ay al-shabaab dawladda al-shabaab ay qabsataba bal waa kanay la daawo warinaya laba nin oo ictisaamidu dhintay hadda ilaahu naxariisto midna waa nooli dan magaciisa sheegadooda garanaysa xataa wasiir buu ka noqday Soomaaliland ninka wasiirka noqday waxaan ku uri walaal hebelow bal arrintii dagaalada ka waran miyaad iska dayseen xaggaanu ku daynay buu uri tamaruun baanu weynay maalintan tamar helo ku afu hargeysaasaan ku afuufaynaa buu uri ninka labaadna madaxtooyada Soomaaliland wasiir soo maray oo wasiirka madaxtooyada ka noqday ilaahay baa subxaanahu wa tacaala markhaati ka ah xajkaan joognay isku qol baanu noqonay horena waa isu naqaan ayaa wuxuu ugu yidhi waxaan u noqday la taliye markaasaan ku yidhi oo sheekh soodii sida kalena aaminsanaa in lagu afuufana soodigii aaminsanaa markaasuu ugu yidhi war sheekh waxaan maad fahmine ama libaax baa la noqdaa ama harag libaax baa la xidhaa ana waa kaadh yar oo aan meelaha ku maraa buuri dee marka haddaad imika madaxtooyadiiba gashay oo gundhada jartay miyaanad wixii iska xaggaan iskaga daayay buuri wallaahi maalintan u haata helo on ku afuufaya buuri kaadh baanu sitaa la taliyaha wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland marka arrimahaasi ka fiirsasho badan bay u baahan yihiin la hawla walaa quwwata illa billah bal taas waxay ahayd dantii guud bay saaw galeen bal shakhsiyan dadkiina sida ka dhigeen madaxweynaha Soomaaliland baa ka bilaabayna waxay ku sameeyeen iyagoo kitaabka macnihiisa iyo mawduucyadiisa bedelaya bay waxa way madax xanuun iyo shaki ku rideen bal ila daawo waa kale waxaan sidaa u leeyahay madaxweynaha qaranka ilaahay hadaayay ayaa habeenkii salaasadii noo yeedhay culimo kala duwan oo waddanka oo waaweyn oo kala firqooyina oo kala qabiilooyina anna aan ku jiro yaanan culimaba ahaanin aad buu mahadsan yahay uu noo warramay heshiiskuu galay iyo inta dhimanaya iminka Talaabiib uu tagayo annaguna waanu waaninay waanu u nasteexayn wuxuu ilaahay nagu ogaabaan sheegay aayaadkan iminka akhriyay qaar kamid ah lagu dul akhriyo culimadii noo hadlaysay ay ku dul akhriyo aad buu ugu waana qaato aayaadka qaar kolka aan akhriyay madaxuusa u qabsanay waxa lagu ciyaariyay madaxweynihii weeye bal imakana guurtidii waddanka dhanba go'aamada u gaadhaysay iyagana sida laga dhigay shaki loogu abuuray bal ila daawo waalidka aabbayo hooyada ayaan maandhowto waxaan ku yaboohay 15 boodood marka waxaan aabbahayna mid baan shan baan siinaya hooyadayna iyo shan aniga arrintaas oka waxa bixiyay ma garanayo wuxuu masakay hayd ma sadaqay hayd haddana dadka iyagoo saa walaal u shakisan oo wixii shakhsiyan ay u sameeyeen ka shakisan baa waxa haddana xil loo dhiibay in ay intaasoo kun oo qof ay go'aan u gaaraan sidee waxaasi macquul u tahay la hawla walaa quwwata illa billah bal maayarkii oo isaguna isku dhex yaacay xoolihii ummadda waxa uu ku sameeyay aan garanayn bal isagana ila daawo waa kane
kow waxaan ahay qof muslin ah oo diinta islaamka ku tirsan ku dhashay ku barbaaray aan aqoonin ilaa jadka jad inaan meel laba aanay diinteeda cid kale kasoo dhex gelin waxaan ahay muwaadin degan berbera waxaan ahay mas-uul ka mida mas-uuliyiinta gobolka ama degmada meeshan anigu aan xukumo aan mas-uulka ka ahay ilaahay subxaana watacaala aniguna wala xisaabtamayo iyo aan isaga kaga boqo marka diinta loo eego diintu waxay ka tahay xagga ugu hooseysa taxadka ayay ka tahay marka maanaha khalad fahansanoo diinta islaamka laga ilaalinaya meeshan dowladda hoose la yidhaahdee lacagta ummadda lagu soo xareeyo sababta looga faa'iidayn leeyahay wax anigu aan sameeyo mooyaane wax ku iga horreeya ku dhiridayna ma jiro waxaan anigu sameeyana anigu ma dabada ka waduuna idhaahdaa maxaa mucaamadaha qur-aanka loo dhisi waayey maxaa masaajidada loo dhisi waayey maxaa masaajidada guno loogu qori waayey sida kuwa kaleba loogu qoro waa wax aniga iga timaado marka waxaas wax keli kuga ahay malaha diintiiba badda ka hor imanaysaa waxaan jecelahay inaad anigana ii bayaamisid bulshadana u bayaamisid lacagta aan maamulo ee ummaddu ay leedahay ee malaayiinka doolara markaan diinteena islaamka eegno waxay kaga jirtaa taxta sifir bay kaga jirtaa waa kaa madaxdii saasaa loo galay shaki baa lagu abuuray bal dadkii shicibkahaa iyagana saa laga dhigay bal ila daawo horta adigu aqoon intaa leeg badulade ilaahay imise nebi ayuu soo diray su-aasha waxaad soo weydiisaa ninka aad u haysato ka ugu aqoonta badane hadduu kaaga jawaabo waa beenaale qur-aanka waanu beeninayaa ilaahay baaba qur-aanka ku sheegay minhum man qasasnaa wa minhum man lam naqsus caleyh adigu imise nebi ayuu ilaahay soo diray diinta haddaad ka taqaana ma garanayo sababtu maxay tahay adigoo muslina sidee ayaad u tiradii nebiyada intay haayeen ilaahay soo diray dadkii adeer saasaa laga wada dhigay madax iyo majaba waxay ka sheekaynayaan garan maayaan wadaadada sidaa dadka u galayna bal waxay ku sheekaynayaan haddaad maqasho wallaahi bilaahi tullaahi xataa dadka waalwaalan waxay ku hadlaan maaha bal ila daawo markaan tagaan qadaaf soomaaligu inuu diinta ka mid yahay soomaaligu diintu ka mid yahay النساء قال الله تعالى إلهي بقى وحول السجوا كورما يدومرك أما ردق أنجور كيس حلال كهين إلهي بقى وحول حرمت عليكم وحلا إذا كحر أنت نمي رجيو أمهاتكم هو ينكي سده هو يكاج حرام على حذف المضاف بالله زواج أمهاتكم هو ينكي لنا جورسة وما عطف عليها ينت لقوا حريري يوردن إلا سكلا كاجا ما حرام هو يدا ودون كان كرتا ود إكرامي كرتا ود ماموسي كرتا لكن تلقى الله يوا كورية كلمة يوحنا عاص طاب كنوع هاوي وهو يدي كل شيء وبناتكم إياها بليني وين أنت عبد الشوي كل لا تمهر هدي أنا كل لا نمهر طاب كنكم أجلتوا وأخواتكم إياه ولالهين haddaad u haysato wadaadadaas ay ku hadlayaan inay diin tahay adeerow allah yarxamak waxaas wax ilaahay iyo rasuultoona la xidhiidha maaha adigoo arkaya saa u soo taagan baa macnihii iyo mawduucii kitaabku lahaa lagaa kaxaynaya goormuu ilaahay kuu baneeyey haddii inanta aad meher la-aan ku dhasho inay kuu bannaan tahay gohalkuu ku yidhi waxa adeer shaafici baa yidhi wadaadadan waxa u diin ah oo idinkana diin idinka dhigeen waa hadalkii shaafici weeye adeer شافعنا هذا الكيس هذا دين ما هاي هذا دين وهيسته هذا الله يرحمك وحا كتاب كان موضوع عيسى معناه ساي وبدليه وحوي سببته كتاب وحو كلا ساريا دين يا الدولة كلا ساريا موضوع عيسى وانو كانين عدين تيدنا وانو كانين بابا عدا إذا ميتي ما كسب حيا ماي انت ودادك مقع إلهي استعمالية مقع رسولك استعمالية سي أمام الأقالو إذن كان هبلينا يرر أكفصدو إن مدينة أرسنال وقد قوسك قرحيان إذن كان إذن مامول وحوليه إننا أقاتو وأديك سنية انت لغا ساريو والله وبالله وطالله باني صومالي أو رن دولة ديك الاسمين وحانو دم كل قد ودميسا إلا
diinta lagu noqdo mooyaane oo la fahmo waxay tahay diintu ma kitaabka ilaahay ba mise waa hadalka shaafici waxa ka horeysa in dawlad Soomaaliya ka dhisanto in waxa weeye diintu waxay tahay la fahmo. Goodbye.